dekad male waxaan ku yidhi wallaahi wuxuu ka dhigay caalam ayuu ka soo saaray waa calatariya isku kiildiraysa ee qaarna mucaarad ka dhigtay qaarna muxaafid ka dhigtay cashar yaa tegay iskaa wuxuu qabsada buu yidhi iskaa wuxuu qabsay ku dhisaa waddankooda adigana intuu halkan kuugu yimi ayuu ku yidhi mucaarad ku noqo kaa reexamarkaa kaa kaloo reexamarkala kan mucaarad ku noqo mala sanaawina intuu kugu yeedhay buu qaarna u yeedhay qaarna calatariya u yeedhay waa horsan ha noqdaan hopeless ha noqdaan bilaa aqoon ha noqdaan dad dhintay ha noqdaan waa dadkaa la liidaya agsaadaa lagugu liidaa etoobiya dalka ugu liidataa lagugu liidaa bilaa aqoon baata jabuuti waa dal inaga mid oo inaga go-ay ismaaciil cumar geelaan idinka warramayaa waa nin goba waa nin madaxa waddankiisi buu dhisay ama maraykan ha keeno ama jarmal ha keeno ama dad kale ha keenee waa taa maanta way kaa horraysaa waan ka degayaa waxaan ku soo gebagabaynayaa waar dalla liigaatay oo busta ayna sheegay waar ha lagu liidee liiditaanka sidaad uga baxaysaa waa dhallinyaroy idinkaa dalkii u soo koray odaygan 70 jirka ah ee dalka ku noolanaya siyaasadeedu kuma quseeyo waar odaygan 80 jirka ee aad qabiilka ku taageeraysaa waxba kaama gelin mid oranaya aan waxaan taageersanay matalnoo kale hebel anu magacyada sheegnaaye iminka madaxweynaha daayir riyaalo kaahin oo kalaa taageersantay way daayir riyaalo kaahin gadabuursaatay okay gadabuursaanahay daayir riyaalaan taageersanay fijaani ma siiyo halkanna waan baktiyaya reerka iyagu berigaba dabka may saaran isaga iyo caruurdiisiina wixii dawladda oo dhan ayaa caloosha geliya halkana waad qabiilaysantay annagaa idin xukumayna haddaanu anagu gada buursanay annagaa idin xukumayna way kii saaqee bool shirka ahaa muxuu oranaya diinta haddaa gada buursigaagaba waxaa ku samey yaa taageersantay kulliyaan taageersanay anuu siiraayi ku adeerbaa okay ma adeer buu ku yidhi kii adeeryoonisu wuxuu ka oranaya anu waxaan taageersanay ina sulub waar ina sulub muxuu ku siiyaa biwaaye wadda heeliyo muxuu ku siiyaa ina sulub nacasiyo nacasku dhalay muxuu ku siiyaa waxba yeedaad tidee isaga reerkiisii afartiisii caruuraa way ciidsayiin wixii dawladdu cunay guriga wuxuu galaa 850 maqsina adigoo dulliya oo lagu liigay oo nacasina waxaad leedahay kaas baa yaadeera ka ku cunaaya ka waxba kaa dhigay ka dulliga ku baday ka asaasiqnimada iyo saqajaannimada iyo dawarsiga iyo tahriibta iyo nacasnimada ku baray waa kaa jeceshay kuwa adeerkaa ilaa aynu kaa iska qabanno dulliga ee dulligayna baday ee soomaali dulliga badayna wallahi inaynaan waxba noqonayn waxaan idii sheegayaa dhallinyaraadtiin inama wanaagsan baadtiin qabyaaladda anu busta waxaan ku leeyahay jawaabtayda waxaan ku soo gebagabaynayaa soomaali maxaa dulliga baday soomaali dulliga waxa baday waa qabyaalad waar haddaad qabyaalad ka hadhaan waa tukoobaad haddaad qabyaalad ka hadhaan waxbaad noqonaysaa waxaan xasuustay mala sanaawdaad saabab ku khudbadeeyey wuxuu yidhi soomaali saddex kaga dayda midna ha kaga dayanina wuxuu yidhi mayrashada iyo udgoonka kaga dayda isjeclaanta kaga dayda waxistarkana kaga dayda mid ha kaga dayanina qabyaalada ha kaga dayanina buu yidhi soomaali qabyaalada ha kaga dayanina waayo soomaali waata qabyaalada halkaa dhigtay ee siirooga ka dhigtay maanta waxaan sarki karin labadii walaalaadan sarki karin loo isnacsiiyey waar maanta ummadii waxay